soo dhawaada asxaabay inteenan bilaabin barnaamijkeena muuqaalka la inoo sartay aad been anfacaysa dal walba waxa uu sanadba sanad ka sii dambeeya soo saaraya saanada ciidanka ee cirka oo mid aad u khatar badan si uu dalkiisa uga daafaco cadawga dunidana uu hubkeeyo maanta barnaamijkeenu waxa uu ku saabsan yahay saanada ciidan ee cirka ee khatarta badan kuwaas ah doronada Turkiga ee ku soo dhawaada barnaamijka shirkadda Turkishka ah ee Rakutsan ayaa doonaysa inay balaadhiso qorshaha ay ku farsamayso waxa loo yaqaan MAM haddii aynu macnaynana noqonaysa rasaasta caqliga leh ee adeegsadaan doronada dalkaasi ee ka mid yihiin Bayraktar TB2 Akinci Asungur kuwaasi oo si weyn caalamka uga yaabiyay si weyna ay u daneynayaan inay helaan kuwa ka mid ah saaxiibada Turkiga sida Ukraine iyo Azerbaijan haddaba rasaastan caqliga leh ee MAM taasi oo heshiiskeedu yahay 100% ayaa lagu daray nashqado hor leh oo cusub si loogu adeegsado meelo kala gedisan sida uu sheegay guddoonka Rakutsan Murad Akinci ayaa Anadolu Agency u sheegay in arrintan ay doronada Turkiga ee iswada gaar ahaan kuwa Bayraktar TB2 ay muhiimad gaar ah u yeeshay markii lagu rakibay gantaalaha rasaasta MAM Akinci ayaa inta raaciyay waxa uu ku macneeyay inay sababtu tahay in doronada Turkigu markii badankooda lagu rakibay si ay u isticmaalaan hubka loo yaqaan MAM rasaasta caqliga leh ee isugu jirta gantaalaha MAM L iyo MAM C kuwaas oo mudnaan gaar ah siinaya dhanka awoodda iyo saxnaanta duqeynta doronada Turkiga ay fulinayaan wuxuu sheegay inay ku dadaaleen inay si horumariyaan taas oo keentay ay dhigooda kaga dheereeyaan dhanka farsamada hubka MAM marka loo eego jawaabaha uga soo baxaya meelaha loo adeegsaday diyaaradaha ay ka mid tahay Bayraktar TB2 dhanka kale haddii aynu eegno daawade Asungur oo daroon joog dhexe ku duusha oo ay Turkigu farsameeyeen ayaa sameysay duulimaad cajiib kaasi oo dhan 8 saacadood xidhiidha oo ay hawada ku jirtay daroonkan ay sameysay shirkadda Turkish Aerospace Industries TAI ayaa markii ugu horeysay wuxuu isagoo raran oo sida hub culus waxa uu gaaray joog dhan 20,000 oo cagood 6,690 mitir shirkadda TAI ayaa xaqiijisay in markii uu daroonkaasi jooga ku duulayay uu sidii rasaas iyo gantaale ay ku jiraan 12 MAM L oo ah rasaasta caqliga leh ee hawada ku jirtay 8 saacadood xidhiidha in ka badan maalin iyo barkeed diyaaradan daroonka ah ee Asungur ayaa qaadi karta uu culayskiisu dhan yahay 750 kilogram isagoo fulin kara inuu hawlgal ka sameeyo meelo jirta fogaanta 8 kilomitir cajiib diyaaradan ayaa tijaabadii midda ka horeysay waxay hawada ku jirtay in ka badan 49 saacadood sida ay TAI sheegtay September 2 waxaase markan u dhamaa hubkeedu ay ku qaadato ilaa 6 qan oo kala duwan daroonkan Asungur ayaa sidoo kale daroonkii ugu horeeyay ee adeegsada rasaasta MK82 oo lagu hagayo Taber oo ay sameysay shirkadda Rakutsan oo isla Turkiga ah taasoo bambooyinka caadiga ah siinaysa awood hagitaan oo u rogaysa rasaas caqli leh taasoo bartilmaameedka lagu liishaamo ku dhufanaysa si toos ah waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka daawade halkaas ayaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeena si aad ula socoto muuqaalada kale ee xiisaha leh ee aynu soo gelino fadlan fiidiyowga like saar subscribe na saar kambeelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada dambe soo gelina wassalaamu calaykum